ayaa waxa aan kaga hadli doonaa iyadoo sida aad wararka kula socotaan ay maalmahan qulqultooyin siyaasadeed ka taagan yihiin ama xiisad siyaasadeed ay haatan ka taagan tahay maamul goboleedka Puntland ayaa daawadayaal waxaan doonaynaa barnaamijka kooban in aan markaasi ku iftiimiyo eedda u horeysa ee xukuumadda Saciid Cabdilaahi Deni lagu eedeynayo oo ah in ay gacanta ku dhigeen madaxweynaha koox lagu magacaabo Aranjan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa hadaba meel kasta ha joogaan isweydiiya waa ayo Aranjan qayb kamid ah warbixintan ayaan idinku soo bandhigi doonaa cidda ay tahay Aranjan iyo meesha ay asal ahaan ay ka yimaadeen Aranjan waa koox u badan marka ugu horeysa reer Nugaaleed waxa ay asaasmeen muddo haatan laga joogo 22 sanadood amaba tan iyo 1992 waxay ahaayeen dhowr iyo 10 dhalinyaro iyo odayaalba isugu jira waxaana xilligaasi gudoomiye u ahaa Ilaahay naxariis jannaha siiye nin lagu magacaabi jiray Cali Hayaan waxa haatan u ah gudoomiye Maxamuud Shido oo isagu xukuumadda Saciid Cabdilaahi Deni furaheeda ah hayeeshe aan kamid ahayn waxa isaguna xubin firfircoon ka ah Maxamuud Aanraade Xasan Shire Abgaal oo isagu ah wasiirka maaliyadda ee haatan dawladda Saciid Cabdilaahi Deni waana xubinta haatan ugu jirta dawladdaasi Saciid Deni waxaana ay kamid yahayd heshiiskii lala galay Saciid Cabdilaahi Deni in Xasan Shire Abgaal uu ka dhigo wasiirka maaliyadda hadii uu ku guuleysto taasi oo markaasi uu ballantii oofiyay waxa ay kamid ahaayeen Aranjan weeyane kooxdii Al-Ittixaad 1992 waxa ay ka qayb qaateen dagaalkii ay la galeen SSDF ay wada galeen SSDF iyo Al-Ittixaad kaasi oo ku dhexmaray gudaha Puntland laguna jabiyay kooxdaasi kadib ururka Al-Ittixaad ayaa waxay go'aansadeen inay abuuraan fursado cusub oo siyaasadeed oo ay markaasi kaga soo kabtaan magaxumadii ka raacday colaadii ay soo galeen 1995 waxay ururka Ittixaad si xawli ah u baritaareen hanaanka ganacsi iyo inay furaan xarumo waxbarasho guud ahaan Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal waxay kala sameeyeen furuuc halwadeena ah oo markaasi danahooda ka fuliya Garowe kuwaasi oo ahaa xubnaha loo yaqaan Aranjan oo ka koobnayd markaa 10 xubnood waxa hadaba Aranjan oo ay dabada ka riixayaan ururkii Al-Ittixaad ay oday dhaqameedyada ay ku kasbadeen miyiga iyo waliba magaalada dhaqaale ay noloshooda markaasi ku maareynayaan taasoo kalsooni iyo wada shaqayn ay kaga bedesheen colaadii 1992 dhacday asaaskii Puntland kadib Garowe waxa ka soo ifbaxay wada shaqaynta qabiilaysan ee ururka Al-Ittixaad iyo waliba Aranjan iyo odayaasha dhaqanka waxaana markaasi ay noqdeen danwadaag magaca beesha markaasi Ciise Maxamuud ay u isticmaalayeen gobolka Nugaal inay markaasi ka aasaasan isla markaasina xiriir bulsho oo mug weyn ay ku yeeshaan horaantii hadaba asaaskii Puntland waxa isla jaan qaaday siyaasiyiin reer Nugaaleed sida Xasan Abshir iyo waliba Cabdiraxmaan Faroole oo ay taageerayaan amaba ay berber taagan yihiin Aranjan odayaal dhaqameed iyo ururkii Al-Ittixaad waxaana ay ku bohobeen danwadaag ay ku noqdeen inay metelaan gobolka Nugaal iyo magaalo madaxda Garowe waxaana ay markaasi qabsadeen isla markaasina ay fahamkooda iyo fikirkoodaba ay ka dhaadhiciyeen dadkii halkaasi u dhashay inkastoo hadaba ay mowqifyada siyaasadeed ee Xasan Abshir iyo Cabdiraxmaan Faroole ay ku kala duwanaayeen oo ay dhinaca siyaasadda ku kala fogaayeen haddana marjac ay u ahaa Aranjan ay ka wada qayb galaan amaba ay ka mid noqdaan kuwaasi oo isku xidhay oday dhaqameedyada isla beeshaasi oo ay ku khasbanaayeen muddadii Puntland ay jirtay waxa si xoogeysanayay Garowe iyo isbahaysiga kooxahaasi balse ma lahayn hadaf
iyo mabaadi' siyaasadeed oo mug leh. bartamihii sanadkii 2018 ayaa maxamuud warsame faarax oo maxamuud shiddo loo yaqaana waxa uu ku soo biiray Arrinjan xilligaasi oo uu isagu ahaa wasiirka qorsheynta Puntland kadib ismaandhaaf dhexmaray isaga iyo Faroole oo markaa ahaa wasiirka maaliyadda. sababtuna waxa ahayd cadaadis uu Faroole markaasi ku sameeyay Mr Shiddo waxaana arrintaasi muddo ku dhex jiray Cali Yuusuf Cali Xoosh oo Arrinjan u qaabilsanaa dhinaca fariimaha. kooxdan Arrinjan lagu magacaabo ee sidii hore baan u sheegnay uu markaasi gudoomiye u ahaa Allah u naxariistay Cali Hayaan haatana uu gudoomiye u yahay Maxamuud Shiddo oo aan ku jirin xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni hase yeeshee kule raad weyn ayaa waxa ay soo ifbaxeen oo ay markale boorka iska jafeen xilligii ololaha Saciid Cabdullaahi Deni ugu jiray in uu u tartamo jagada madaxtinimada waxaana dhaqaale iyo adduun xoog leh ay ku bixiyeen in markastaba uu soo baxo Saciid Cabdullaahi Deni. gorgortanka iyo heshiiska ay la galeen Arrinjan madaxweynuhu intii aanu la dooran ama aanu soo bixin ayaa waxa ahayd in wasiirka maaliyadda marka ugu horeysaba ay iyagu gacanta ku qabtaan waana tan keentay inuu ballantaasi oofiyo oo uu madaxweyne Deni gacanta ka saaro wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgaal oo isagu haatan ah wasiirka maaliyadda ee Puntland. isla jagadaasi ayaa isaguna waxa dhinaciisa u ololeynayay oo doonayay inuu gacanta ku dhigo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Faroole oo ah madaxweynihii hore ee Puntland oo u doonayay jagada in loo dhiibo wiilkiisa Maxamed Cabdiraxmaan Faroole. xilligaasi oo isaguna xubnaha u waaweyn uu ku jiray Cabdiraxmaan Faroole ayaa waxa ay isku khilaafeen Maxamuud Shiddo iyo Xasan Shire jagadaasi wasiirka maaliyadda oo loo dhiibi waayay ama loo diiday Maxamed Cabdiraxmaan Faroole. Saciid Cabdullaahi Denina uu gacanta u galiyay Xasan Shire Abgaal taasi ayaa keentay in haddana uu Cabdiraxmaan Faroole candhuuftiisa dib u liqo oo uu ka biyo diido kooxdii ay ka wada tirsanaayeen ee Arrinjan. bal waxa idin tus doona daawadayaal markii lagu dhawaaqay xaruntii baarlamaanka ee la doortay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni in uu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee Puntland ayaa markiiba waxa ku booday oo hagareeyay isagoo fadhiyana isku duubay wiilkii u dhalay Cabdiraxmaan Faroole ee Maxamed Cabdiraxmaan Faroole oo markaasi u riyaaqay in Saciid la doorto isaguna uu noqdo wasiirka maaliyadda hase yeeshee markii dambe loo gooyay arrintaasi oo loo dhibay Xasan Shire Abgaal. sawirkaasi waxa uu cadeynayaa xiriirka Arrinjan iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. haatana daawadayaal waxaan idin tus doonaa klib yaro gaaban oo muujinaya in ay u hambaleynayeen kooxdaasi Arrinjan Saciid Cabdullaahi Deni inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee haatan lagu jiro iyadoo ay gurigiisa ugu tageen si gaarana ay ugu hambaleeyeen gudoomiyaha kooxdaasi Arrinjan Maxamuud Shiddo iyo waliba Maxamed Cabdiraxmaan Faroole waana kan klibkaasi oo gaaban oo aan idin soo gudbinayo. hanashada jagada wasiirka maaliyadda ee kooxdaasi Arrinjan kaliya oo markaasi gacanta loo galiyay Xasan Shire Abgaal kuma ekaan ee waxa ay gacanta ku dhigeen gabi ahaanba madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. dhawaan ayaa markii daawadayaal sidaad warkaba ku maqleyseen markii madaxweynuhu uu ka xanaaqay Cawil Xasan Daad oo ah nin ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka su'aal uu weydiiyay oo keentay in madaxweynuhu cadad darteed uu ishayn waayo oo uu albaabka boobo ama uu ka baxo ayaa markii uu horeysayba madaxweynuhu waxa uu isku qaaday xafiiskii wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgaal oo uu markaasi la tashi arrintaasi wixii ka iman lahaa iyo falceliskooda uu kala tashanayay. ma tagin madaxweynuhu gurigiisa mana tagin madaxtooyadii ee waxa uu si toos ah u tagay Xasan Shire Abgaal si uu ula tashado taasi oo muujinaysa in gacanta midig uu yahay Xasan Shire Abgaal.
isla xaruntaasi gudaheeda hadaladii khudbadda ee laga soo jeediyey markii su-aashaasi madaxweynaha la weydiinayay wax yar ka hor cabdiraxmaan faroole oo ah madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland ayaa isaguna ka jeediyey hadal hanjabaad ah oo uu ku muujinayo in kooxdaasi aranjan uu markaasi doonayo aandhahde uu sheegay in ay gacanta ku dhigeen oo ay had iyo jeer shafka u garaacaan dadka iyaga oo magacii xukuumadda puntland isticmaalaya waxa uu sheegay madaxweynihii hore faroole weeyaane in haatan wixii ka dambeeya uu doonayo in uu geedkiisii timirtaha u hoos fadhiisto dabeetana uu ka saaro dalka bal waa kan hadalkii madaxweyne faroole isaguna dowladda waxaan leeyahay dad baa magaceeda sheegta waa dowladda puntland oo ku dulaaltama oo dad ugu hanjaba oo suuqa gashaday in iyagu dowladdan dhiseen wasiiraday sheeganayaan xildhibaanadii qaar sheeganayaan inay keeneen aniga xataa maalmahan laysoo galo anu waaba aamusnaaba marka madaxweynahana waan ka arkayaa dadka caynkaasa taayiradii hadalkan la gubaayay haddaan waraystay dadka gubaaya dadka caraysan bay u badnaayeen uma badnayn dadkii dhibaatadu gaadhay oo xaqa u lahaa iyagu inay mudaharaad sameeyaan laakiin ay taayir gubin oo buuq sameeyaan waxa weeye dhulka nabadha loo daayo dadka wax sheeganaya dadka laga qabto haddaan dawladdu qaban annaga qabanayna geedkii timirka aan u fariisanayaa wallahi hal maalin magaala laga saaray وهاجاك داوديال برنامجكاسina intaasi ayaan ku soo koobiyaa tan iyo kulankeena dambe daawadayaal barnaamijkaas oo kale intaan dib u kulmi doono waa cali xaraaro dhamaantiin bada ka tagay sidaa iyo nabad geliyo